waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu baaqday shirkii looga hadli lahaa doorashada Soomaaliya ee la qorshay inuu biri ka dhaco xirada ciidamada cirka Afisoni oo ku dhex taala xindaabka xalane ee gobolka Banaadir. ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay diideen ka qaybgalka shir uu ilaamiyay madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale inaysan ogoleen in shirka lagu qabto goob uu ilaamiyay madaxweyne Farmaajo ayna sugayaan ciidan isaga ka amar qaata. Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa beesha caalamka u sheegay inuusan madaxweyne Farmaajo haysan sharciyad oo shirka ku ilaamiyo isla markaana uu ku hogaamiyo siyaasad darteedna aysan ballantu ahayn inay ka qayb galaan shir uu madaxweyne Farmaajo soo abaabulay. wararkan helna ayaa xaqiijinaya in Axmed Madoobe iyo Deni maamulada Puntland iyo Jubbaland ay si rasmi ah xubnaha beesha caalamka ugu sheegeen inay Muqdisho ku joogaan casuumad dhankooda ah isla markaana aysan shaqo ku lahayn shirka uu ilaamiyay madaxweyne Farmaajo habeen hore saqdi dhexe. sidoo kale wararkan helna ayaa tilmaamaya in madaxweynaha muddaxileedkiisa ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diidan yahay inuu ka qayb galo shir uusan iclaaminin isla markaana qabanqaabada iyo amniga goobta uu ka dhacay aysan mas'uul ka ahayn dawladdiisa. wakiilka gaarka ee qaramada midoobay safiirka dawladda Mareykanka iyo wakiilada kale ee beesha caalamka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay ee looga hortagayo fashil ku yimaada shirkan oo noqonaya midkii shanaad oo fashilma haddii uu qabsoomi waayo. sidaan xog ku helnay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa qorsheeyay inay si degdeg ah dib ugu laabtaan deegaanadooda halka ay Villa Soomaaliya ee madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ku cadaadinayso inay tagaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baydhabo oo ah xarumahooda si fashilka shirka dusha looga saaro maamulada Puntland iyo Jubbaland haddii ay ka baxaan magaalada Muqdisho. safiirka dawladda Mareykanka Ambassador Donald Yamamoto ayaa goordhow soo saaray qoraal uu ku amrayo madaxda dawlad goboleedyada inaysan Muqdisho ka bixin ilaa laga heshiiyo doorashada Soomaaliya. qoraalka Donald Yamamoto ayaa lagu yiri dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin doorasho hadda dhacda. Saciid Deni, Axmed Madoobe, Qoorqoor, Cali Guudlaaw iyo Lafta Gareen waa inay sii joogaan Muqdisho ilaa doorashada laga heshiiyo. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ii sheegay inuusan shirka biri dhici doonin ilaa beesha caalamka ay la wareegto abaabulka iclaaminta iyo hoggaanka shirka waana shuruud ay jeediyeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe. halka xildhibaano kale oo ka agdhow madaxweyne Farmaajo ay sheegeen inuusan madaxweynuhu ka qayb gali doonin shirka haddii uusan hoggaaminta shirka iclaaminta iyo amnigaba uusan mas'uul ka ahayn isaga ama dawladdiisa. xaaladda Soomaaliya ayaa cirkis ku shareertay saacadii ugu dambeeyay waxaana hoteello ku yaala magaalada Muqdisho xarunta xalane iyo sidoo kale xarunta Villa Soomaaliya ka socda shirar gaargaar oo xal loogu raadinayo in shirkan uu fashil ku dhammaado. dhinaca kale wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa wado qorista wariyaal ka soo warrama shirka haddii uu biri dhaco. warbaahinta Muqdisho qaarkood ayaa laga sugaya inay diyaarsadaan wariyaal shirkaasi ku matala kuwaas oo la marsiin doono wasaaradda warfaafinta Soomaaliya waxayna arrintan muujinaysaa in abaabulka shirka ay wado madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo goordhow la hadlay idaacadda BBC-da ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuusan ogeyn shir maalinta beriyaha ka dhici doona magaalada Muqdisho. Deni waxa uu sheegay in amnigoodu halis galay isaga iyo Axmed Madoobe isla markaana ay u haysteen meel ammaan ah xindaabka xalana oo ay ku sugan yihiin ciidanka Amisom sida uu sheegay wakiilada caalamka laakiin xalay la soo weeraray ama la hareeyay. wuxuu sababta ku sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya xalay ay tageen garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kadib markii lagu wareejiyay saldhigga ciidanka booliiska ee garoonka ku yaala qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir. waxaa laga yaabaa in saacadaha soo socday wax kasta isbedelaan isla markaana uu shirka qabsoomo maadaama ay dadaallo xoog la wadaan xubnaha beesha caalamka. madaxda Soomaalida ayaa u muuqda kuwa isxujeynaya oo mid kasta awoodiisa ku tijaabinaya shacabka Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaya dhibaatooyin badan.